meesha isleena shaqaaluhu way ka isku maareeyaha guud ee dekedda Muqdisho Danjiri Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa maanta xariga ka jaray xafiisyo cusub oo ay ku shaqeyn doonaan howlwadeennada afar waaxood oo ka tirsan maamulka dekedda kuwaas oo kala ah waaxda shaqaalaha, waaxda mashaariicda, waaxda caafimaadka iyo waaxda warbaahinta. Munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa maareeyaha ku-xigeenada dekedda Muqdisho iyadoo xarig jarka kadib ay madaxdan kormeereen xafiisyada cusub ee maanta la daahfuray oo ay ka socotay shaqooyin kala duwan. maareeyaha ku-xigeenka dekedda Muqdisho Mudane Ismaaciil Siciid Muuse ayaa ugu horreyn ka warbixiyay xafiisyadan la soo kordhiyay. maanta waxaan ku sugannahay maalin kaleeto oo runtii muhiim u ah dekedda Muqdisho taas oo xariga uu uga jaray maareeyaha dekedda Mudane Ambassador Maxamed Cali Nuur xafiisyo cusub oo loogu soo kordhiyay dekedda kaas oo u qaybsan afar waaxyood oo muhiim u ahaa shaqada dekedda. run ahaantii waxaan dhihi karnaa arrintaani waa tallaabo kaleeto oo horumar ah oo qaaday maamulka dekeddu waxaana arrintaas runtii aan dhihi karaa aragtida cusub iyo dhiigga cusub ee uu dekedda ku soo kordhiyey maareeyaha cusub uu arkay kadib markuu arkay sidii loo tayayn lahaa shaqaalaha horumar loo gaarsiin lahaa arrintaasi waxay tahay waan dhihi karnaa mid fududaynaysa shaqaalahana u fududaynaysa environmentiga ay ku shaqayn lahaayeen isla markaasna u ah wax soo saarka iyo horu dhaqaajinta dekeddana midda dejinaysa taas oo ah miraha aan dhihi karno dhiigga cusub iyo fishinka iyo aragtida cusub ee uu la yimi maareeya Maxamed Cali Ameerika annaguna aanu kula shaqaynayno arrintaas oo aanu garbihiisa ku nahay marka aad baan ugu faraxsanahay waana waxaan dhihi karaa haddii aan arrintan maartay hore loo sii wado iyo dhismayaasha matoosi cusub dekeddan Muqdisho oo mar walba kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad ka galaysay inay hore u sii socon doonto oo ay meel sare gaari doonto marka maareeyo ku soo dhawow tani waa aragtidaadii tani waa maaragtay dhiigga cusub ayaad nagalisay. maareeyaha guud ee dekedda Muqdisho Danjiri Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa tilmaamay inay sii socon doonaan tallaabooyinka iyo mashaariicda wax ku oolka ah ee lagu horumarinayo dekedda weyn ee caasimadda. waxaa maanta sharaf noo ah inaan xarig jarnay xafiisyo cusub ee dekedda Muqdisho sidoo markaa sheegay markaan halkii aan la wareegay 100 maalmood ka hor xilka la wareegay waxyaabaha aan sameeyay waxay ahayd in aan la kulmo shaqaalaha waxaa ii soo baxday in xafiisyo loo baahan yahay waxyaaba u horeeyay aan ku dhaqaaqay inaan sameeyay waxay ahayd in xafiisyo la sameeyo si shaqada dekedda ay u fiicnaato si shaqaalaha ay u helaan meel ku shaqeeyaan marka waxaan rabnaa in haddii la yiraahdo shaqada dekedda maadaama hadda ogtiin la badiyay oo habeen maalin la shaqeeyo in hawsha socoto habeen maalin la shaqeeyo kadibna aan gaarno heerka ugu sareeya oo dekedaha ay gaaraan hadda waxaan ku jirnaa qaalinta afraad ee Afrika waxaan rajaynaynaa qaalinta koowaad shaqaalaha waxaan ugu hambaleynayaa shaqada fiican ay qabteen ee hayaan maalin iyo habeenba marka aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale.